Weli waxaa baraha bulshada haysta saameynta uu reebay muuqaalkii kilibkii yaraa ee lagu fadeexaysanayay gabadha sharafta leh ee Cayooni Qurux. Haddaba haddii aad ka mid tahay taageerayaasha dhabta ah ee Cayooni Qurux, sida xaqiiqada u taageera, waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto, waana kugu waajib maadaama aad tahay taageero gabadhaasi Cayooni Qurux. Haddaba muuqaalkaasi kilibka ah ayaa waxaa adeegsaday dhammaan youtuberska Soomaalida iyagoo siyaabo kala duwan uga hadlay muuqaalkaasi. Haddaba gabadhan ayaa la sheegay in tan iyo xalay ilaa iyo haatan ay guri ku xiran tahay, islamarkaana aysan suurtagal ahayn in qolkaasi gudaha loo galo. Sida ay ku baahinayaan dadka nacabka ah ee gabadhan kasoo horjeeda baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook, ayaa waxay sheegayaan in gabadhan ay isdishay islamarkaana ay qolka dhexdiisa sun ku cabtay. Subxaanallah. Wararkan oo ah warar been abuur ayaa u muuqda kuwa meesha ka saaraya in ay yihiin dad cadow ah oo weli soo taagan, islamarkaana aysan deeqin muuqaalkii fadeexadaha ay kasoo gudbiyeen gabadhan sharafta leh. Haddaba dadkan cadowga ku ah gabadhan, islamarkaana ahaa dadkii awalba muuqaalkan baraha bulshada soo baahiyay, ayaa haatanna waxa ay muuqaalo argagax leh iyo naxdin leh oo been abuur ah oo ay doonayaan dadka in ay kusii carageliyaan ay ku faafinayaan barta Facebook oo ah barta ugu muhiimsan ee muuqaalada been abuurka ah ay inta badan Soomaalidu isku dhaafsadaan. Lama oga ilaa iyo hadda xaqiiqada dhabta ah ee gabadhaasi xaaladeeda, inkastoo ehelada qaar gabadhaasi u dhow ee baraha bulshada ku wadaagayeen in xaaladeeda caafimaad ay aad iyo aad u fiican tahay, islamarkaana aysan jirin wararkan been abuurka ah ee qabsaday baraha bulshada Soomaalida. Dadka caanka ka ah baraha bulshada Soomaalida ayaa u muuqda kuwo wajaha inta badan fadeexooyin iyo in laga bumbuuniyo warar aan jirin, taasi oo ay sababayso caannimada ay ka dhex leeyihiin bulshada, islamarkaana magaca ay bulshada aadka ugu barteen, islamarkaana ama taalantiyadooda ay kusoo bandhigaan baraha bulshada lagu taageeray. Haddaba haddaad tahay taageero dhab ah gabadhaasi sharafta leh ee maskiinta ah ee jaamacadda iska dhiganaysay, islamarkaana ay dadkan Soomaalidu intooda badan